qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wada qorshe ku aadan mooshin ciidamada Kenya looga saarayo guud ahaan dalka. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabdi Shire Jaamac oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay sheegeen in uu dhameystirmay mooshinka ka dhan ah ciidamada dowladda Kenya. Xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegay in mooshinkaas golaha shacabka la horgeyn doono marka uu furmo golaha bisha soo aadan ee Sebtembar. Maxamed Cumar Dalxa waxa uu sheegay in mooshinka ay saxiixeen xildhibaano ku filan isla markaana fadhiga baarlamaanka ugu soo horeeyo lala sugayo. Mooshinka ayay ku sheegeen in uu daba socdo go'aan golaha baarlamaanka ay ugu gudbiyeen xukuumadda Kenya oo ahaa in biyaha Soomaaliya ay Kenya xooga ku doonayso laga difaaco Soomaaliya isla markaana ciidamada Kenya la geeyo halka. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in uusan hadalkiis daba dhigayn xildhibaan Cabdi Bare Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda Kenya, laakiin sida uu hadalka u dhigay Dalxa, Soomaaliya in aysan marnaba aqbalayn damaca Kenya. Kenya ayaa xilligan si toos ah ugu lug leh arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland oo ay taageersan tahay Axmed Madoobe. Waxa ayna awood dhaqaale ku bixinaysaa sidii dib ugu soo noqon lahaa Axmed Madoobe, taas oo ay u aragto in fursad kale oo ay Kenya heshay. balse dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale musharaxiinta ka soo horjeeda afkaarta iyo habmaamulka Axmed Madoobe ayaa iska biyo diiday arrinka. Waxa ayna dadaal xoogan ugu jiraan sidii meesha looga tuuri lahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo hadda loo xaglinayo in saaxiib dhow uu leeyahay dowladda Kenya.